halyayadii u kacay sahan iyo hayaan isku hawlayeen oo heelano halyayadii u kacay sahan iyo hayaan isku hawlayeen oo heelano hawsha iyo xilkii habkii dawladnimo idinka hawsha iyo xilkii habkii dawladnimo idinka haye hilinka ku wadaaga dashuway haraado hormad ma maqnee dashuway haraado hormad ma maqnee aharsada dadkeeni aan horumar gaarno aqoonsiga haleele بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفاية والصلاة والسلام على أرشف المرسلين سيدنا نبينا ومي وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت واي تاريخ وتايكو دي بشي لباد كون إيه اللي هي طبانكا وحان فرديا وحفيزكي لحي ألانتا بريستول لحسبية كلمية وحان دونا يا إنا اللو داغو بلشوين تسومالي لان إيوه taageerayaasha xisbiga kilibkan kooban ee aan kaga hadlayno dardargelintii ujeedooyinkii aanu laanta Bristol oo asaasnay iyo halkaanu ku wadnay iyo sida ay xalku yahay marka koobaad waxaan salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliland iyo magaciisa milgaha bale ee meel kasta oo ay joogaan iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye salaan aad iyo qiimo badan baan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marlabaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa kaloo aad u salaamaya madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliland iyo shacab weynahooda waxaan doonayaa inaan in kooban maanta halkan ka hadlo aniga oo runtii doonaya in aan ummadda wargeliyo halkaanu xisbiga intan dhaweyd ka soo qaadnay laanta Bristol iyo heerkaanu doonaynay inaanu gaadhno iyo waxyaabaha naga hor yimi iyo waxa suura gelin waayay halkaan doonaynay inaanu gaadhnaa marka koobaad waxaan ahay afayeenka xisbiga laantiisa Bristol ee South West waxaan xilkaasi hayay muddo imika laga joogo 6 bilood maamulkii magaalada Bristol ee uu gudoomiyaha ka ahaa Maxamed Xaashi Bacado gurubkii kala wareegay baan ahaa gudoomiyaha xisbigana waxa ah Mustafa Xaashi Cismaan gudoomiyaha xisbiga laanta Bristol waxaad moodaa xisbiga kulmiye marka qurbaha la yiraahdo gudaha laga yimaado inay magaalada Bristol tahay meeshii ugu weyneed ee jundiga laga geliyay lagana istaaray jiinkii ugu weynaa ee xisbiga kulmiye ee uu ku haleelay kursiga maanta uu fadhiyo talada wanaagsan oo dalka ku hogaaminayo xisbiga horumarinta iyo daryeelka bulshadu waxa horay maamul ahaan anigu shakhsiyan uga soo qaban laakiin 5 sano ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo madaxweynaha jamhuuriyadda ee uu hayay ayaa runtii ugu dhalisay waxyaabaha waxqabadka ee dalku uu ku dhaqaaqay haday wadooyin tahay haday tahay taabagelinta darajooyinka iyo waxyaabihii lamid ah oo runtii aan aad u soo koobi karin ayaan damcay in aan meeshan joogo contribute gareeyo kartidayda aqoontayda taybna aan geliyo inaan xisbiga mar labaad sidoo dalku ugu soo noqon lahaa ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa xisbiga insha Allah ta'ala 2017 aan rajeynayno inuu mar labaad guul ku dhaliyo dalka ka qabto sidoo kale wada dhagsanahay maamulkii halkan waxaanu sameynay
system ka duwan systemka xisbiyada kale annagoo oo sameynay registrena formo central committee older group oo waxgaradkeena oo dib loogu noqonayo oo aanu dhinid moogtay mustaqbalka xisbiga markii xaaladda dhacdo dib loogu noqdo waxaad yar moodaa in halkaa iyada ah nin halkii aanu doonaynay run ahaantii xafiiskan oo xafiiska kulmiye ah centerka kulmiye ee magaalada Bristol ah maamulkaanu maamulka wadanahay ee uu gudoominayo Mustafa Xaashi waxa aad moodaa inaanu xafiiskan arag aga u leeyahay waliba soo gelin waa xafiiska shidan ee calaamada kulmiye taalo ee loogu adeegay xisbiga waxaanu isku afgaran weynay maamulka uu xisbiga u socdo madax baa ka timid dalkii heer wasiir leh oo wasiir Cabdi Camuudi ka mid yahay oo imika wasiir dawladda ah wasiirkii hore ee ahaa moogtay difaaca ku-xigeenka ahaa cadami ku-xigeen wasiir cadami imikana ah wasiir dawladda arrimaha bulshada weygii dhawaytaan halkan ku casuumnay madax ganacsatada magaalada oo Maxamed BBC ah oo aad ugu mahadnaqayno xisbiga qayb lixaad lahaya ayaa halka galwadeen ka ahaa waxa lagu kari weynay gudoomiyihii inuu ka soo qayb galo madaxda timid maadaama aanu xisbi xaakim nahay anigu shakhsiyan halkaas aan joogay cidii daawatay afka xisbiga ku soo dhaweeyay aadna waan uga xumaa shakhsiyaadka heer masabkaaya ee heer wasiir leh ee heer agaasime leh ee heer xisbi sargaal leh ee xisbiganu adeegaya inaanu laanta Bristol hadaan nahay dib u dhac naga yimi waxaan aad iyo aad uga cambaaraynayaa oo aan leeyahay gudoomiyaha Mustafa waa in uu xilkan sida ugu dhaqsaha badan leh uga dhaadhaca anigu halkan aan joogaa waxa weeye anigu shakhsiyadayda iyo xisbigu way kala weyn yihiin waxaan mar labaad qaylo u diray anigu haddii aan afayanimadayda aan ku waayayo oo aan leeyahay oo haddaan xisbiga wax ku noqonayo anigu banaynayo dabcan waxa aniga markaa la qaatay inaan anigu banaynayo kasana fudud oo xisbiga way wax loo wada adeegaya waa xisbiga mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu aad iyo aad uga codsan lahayn xafiiska golaha dhexe ee Hargeysa magaalada madaxda jamhuuriyadda Somaliland inuu ka hawl galo sidii uu uga soo faragelin lahaa ee uu maamul saxa oo registera uga soo dhisi lahaa halkan magaaladani waxa iminka konton qof baanu register formadoodii halkan ku haynaa register baanu samaynay form member bay rabaan inay ka noqdaan adduun bay rabaan xisbiga inay geliyaan taageero rabaan xisbiga inay geliyaan time bay rabaan xisbiga inay geliyaan waxaanu mar labaad ugu baaqayaa bulshada Somaliland iyo xisbiga kulmiye ee jecel laanta Bristol in ay halkii ay ahayd ku soo noqoto markii aynu madaxweynaha dhinacyada haynay maantana inaynu muuse qabanno waxaan leeyahay waa inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay arrinka uga soo jawaabtaa oo aan faraya gudoomiyaha xisbiga ana musharaxa Muuse Biix Cabdi waxa kale oo faraya gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Kaahina inay dhamaan ka soo qayb galaan inay ka soo hawl galaan sidii xisbigani uu soo noqon lahaa mar labaad laanta Bristol la dardarteeda ay ugu soo noqon lahayd waxa aan leeyahay insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baanu bulshada u jecelahay dardargelinteedana waanu ka sugaynaa xisbiguna xisbi kala qaybsama maaha meeshu waa Bristol xisbigu waa kulmiye musharaxu waa Muuse ama saddexdaas way saaran marka Bristol waxa haynaya waa maamul xumo ahayn waxaan leeyahay saddexdaasiba way saaran yihiin mar waa Muuse Biixi oo waa musharax madaxweynaha mustaqbalka meeshuna waa Bristol xisbiguna waa kulmiye Bristol kuma cusbada iyo kulmiye kuma cusba waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan madaxa xisbigu ha uga soo qayb galo in uu xisbi la yaqaan oo karti iyo aqoon ku hufan tahay uu magaalada ka dhisaa mar kale aniga oo ka hadlaya afkayga oo ah afayeenka xisbiga South West especially laanta Bristol aad iyo aad baan salaamayaa bulshooyinka Somaliland meel walba ay joogaan waana idinka mahadnaqayaa taynkiina kooban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane mas-uul waxa ku weydiinaya su-aalo kooban oo kaa weydiinayno xusbiga kulmiye maadaama aad madaxdiisa ahayd gudoomiyaha saddexaadna ahayd afhayeen aad ka ahayd xusbiga ma ka wada hadasheen gudoomiyihiinii xusbiga ee ahaa laanta Bristol maadaama aad ka dayrinayso ma ka wada hadasheen inuu ka tanaasulo ama tala ma ka siisay waa su'aal fiican
waxaan doonayaa inaan tahay mid ka idhaahdo waxaan doonayaa anigu dee xisbigaa ma fadhiya ama xafiiska xisbiga dhexe laanta Bristol waxaan gudoomiyahayga dhowr jeer kula taliyay shaqada xisbigu inay ka socoto xafiiska aan fadhiyo waa mid aan hirgelin waxaan gudoomiyahayga dhowr jeer aan kula taliyay oo aan tira lahayn gudoomiye aadna u talaasul anna u talaasulo danta xisbiga yeena dan shakhsiyna gelin danta xisbigu halka ay ku jirto aynu u talaasulo si xisbigu u dhismo wax noqdo ma laga yaabaa inaad u tartan kula jirto gudoomiyaha oo isku soo sharaxayso gudoomiyaha koobaad oo dee waa sharci diidan baa jir laakiin markay kuma jirto gudoomiyenimo waan u yeedsanay laakiin waxaan ku yeedsanahay cid kasta oo magaaladan degan baanu doonaynaa inaanu haranno xisbiga ka dhigna xisbi aad iyo aad u qodobad weyn intuu mid naga maqan yahay xisbiga dhaliilaya inuu magaalada degannahay waanu tabaynaa marka waxaanu doonaynaa inaanu ummadda kasbanno ma laga yaabaa in si kala joogtaan waxaan inii keenta kala jab iyo kala durugsanaan baahasan oo kala jebisa reer Bristol maya Soomaalida ku maahmaahda waxa tiraa nin baa yidhi dusha nabarka laga dhayo inaad hoos u dhaadhicin dawadiisa lama helo weligaaba duuduub dusha wax yasaar nabar waa halkiisii ujeedadayda haddaanan aynaan wareemin halkay wax yaalaan hagaagi mayso maxaad u diraysaa maanta ugu dambeyn waxaan u dirayaa ama reer Somaliland dadka kale waxaan u dirayaa xisbiga kulmiye meeshu waa Bristol musharaxna waa Muuse hadalkayga hore ku jirtay saddexdaas oo isa saarana dawadu garanayna guusha halkay jirtay gaariga aan ka tagay taageera xisbiga oo horumarka taageeraan leeyahay aad u mahadsan halyeeyadii uu kacay sahan iyo hayaan isku hawlayeen oo helano halyeeyadii uu kacay sahan iyo hayaan isku hawlayeen oo helano hawsha iyo xilkii habkii dowladnimo idinka hawsha iyo xilkii habkii